kusoo dhawaada Rafiki Academy. Fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe saar. Cashirkeena waxaanu ku eegaynaa maanta barnaamijkeeni ahaa ku baro luqadda Swahiliga ah. Sheekadeenana waxaa tani: katika kijiji cha Regania waliishi vijana wawili. Katika kijiji cha Regania, tuulada Regania, waliishi waxa ku noolaa vijana wawili, waxa ku noolaa laba wiil. Vijana hawa walikuwa masahibu. Vijana hawa wiilashani walikuwa waxay ahaayeen saaxiibo wa kufa na kusikana, kuwaas oo isu dhintaan isna duugaan, kuwaas oo isu dhintaan oona isduugaan, ama saaxiibo aad iskugu fiican ah. Katika kijiji cha Regania, tuulada Regania, waliishi vijana wawili, waxa ku noolaa laba wiil. Vijana hawa walikuwa masahibu. Wiilashani waxay ahaayeen saaxiibo wa kufa oo wada dhintay, isu dhinta na kuzikana oona isduuga. Hawakuachana, ma ay kala tagin, walitembea pamoja. Weligood ma ay kala tagin na walitembea pamoja. Way wada socon jireen ama way isla socon jireen na kuenda shule pamoja, iskuulkana way isu raaci jireen. Hakika dhab ahaantii walikuwa utana upote. Dhab ahaantii waxay ahaayeen sidii qaansada iyo leebkii, ama qaansada iyo gamuunkii. Hawakuachana, weligood ma ay kala tagin, walitembea pamoja, way isla socon jireen na kuenda shule pamoja, iskuulkana way isu raaci jireen. Hakika dhab ahaantii walikuwa utana upote, waxay ahaayeen sidii qaansadii iyo gamuunkii. Ijapokuwa umri wa Hilda ulikuwa tofauti na wa Imani. Inkastoo da'da Hilda ay ka duwaneed tan Imani, ijapokuwa inkastoo umri wa Hilda, da'da Hilda ulikuwa tofauti ay ka duwaneed wa Imani, tan Imani, jambo hilo, arrinkani halikuutatiza, ma uusan saameynin urafiki wao saaxiibtinimadooda. Arrinkan ma uusan saameynin saaxiibtinimadooda. Hilda alikuwa na umri wa miaka 15. Hilda da'diisu waxay ahayd 13 sana, na Imani alikuwa na miaka 18. Imanina da'diisu waxay ahayd 18 sano. Hilda alikuwa na umri wa miaka 13. Hilda da'diisu waxay ahayd 13 sano. Imani alikuwa na miaka 18. Imani da'diisu waxay ahayd 18 sano. Siku moja Hilda aliamshwa na Imani. Maalin maalmaha ka mid Hilda waxaa hurdada ka toosiyey Imani. Siku moja, maalin maalmaha ka mid, Hilda aliamshwa na Imani. Hilda waxaa hurdada ka kiciyey Imani na kumwambia, wuxuuna ku yiri kuwa walifa, wuxuuna ku yiri waxaan mudanahay walifa, waxaan mudanahay kuwana pesa zao in ay hantaan lacagtooda ah wenyewe, lacag ayaga u gooni ah in ay hantaan. Maalin maalmaha ka mid Hilda ayaa ka toosiyey Imani hurdada, wuxuuna ku yiri waa in aan yeelana lacag inaga inoo gooni ah. Pesa hizo, wuxuu yiri lacagta ayada ah, zingewasaidia, waxay ka caawin lahayd kununua in ay iibsadaan biskut na vitu vingine iyo waxyaabo kale vinavyopendwa oo ay jecel yihiin watoto, caruurta ay jecel yihiin. Pesa hizo, lacagtaasi, zingewasaidia, waxay ka caawin lahayd kununua in ay kusoo iibsadaan biskut na vitu vingine iyo waxyaabo kale vinavyopendwa na watoto, waxyaabaha kale oo ay jecel yihiin caruurta. Mwanzoni, marka hore Hilda alikataa. Marka hore Hilda wuu ka diiday. Mwanzoni Hilda alikataa. Hilda marka hore wuu ka diiday. Baada ya maneno machache alishawishika. Hadal gaaban kadib, baada ya maneno machache, hadal gaaban kadib, alishawishika,
u oggolaaday ama waa laga dhaadhiciyey. Imani alionya, Imani wuxuu uga digay Hilda asimuombe, Hilda inuusan wax ka codsanin, inuusan wax ka baryin vitu vyake, inuusan waxyaabihiisa uusan ka baryin. Casharka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan kanaalka subscribe sar.